إن الله ودي إلهي هذا وحرقين دون شرعك قفل بروح ولي ماذا يلو قاعد رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن عبد الولي الشيخ أحمد محمد أي همبلي بوغادين ujeediyay ciidamada amniga guushan weyn ay u soo hayeen dalka iyo dadka waxa uu inta raaciyay ra'iisul wasaaruhu in howlgallada noocan oo kala ay sii socon doonaan inta laga xasilinayo ammaanka guud ee caasimadda waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ciidamada amniga oo runtii dadaalkooda keenay in dhabarka laga jabiyo cadowga qofka inta la eegna laga soo qabto aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa wasiirka wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga iyo taliyaashooda iyo saraakiisha intaba hawshan waa hawl dhaxalgal ah waa hawl runtii ciidanka amniga uu ku guuleystay loogana adkaaday cadowga waxaan rajaynayaa in hawshan ay sii socoto oo ilaa ay suurowdo oo la gaaro in magaalada madaxda xamar iyo dalka intiisaba ummadda Soomaaliyeed ay nabad iyo cabsilaan ku noolaato waxaa muuqata cadowga fulayga oo gumaadaya ummadan waxba galabsan oo maalin walba dad masaajidka ka soo baxay oo cibaadeysanaya ridow istaagaya oo ku gaadaya halkaas in uu jabayo waxa ficilada bariyahan dhacayna ay ka muuqato nafla caarinimo iyo inay tahay meeshii ugu dambeysay ummadda Soomaaliyeed waxay maanta ku faanin kartaa inay ciidan amni oo wax qabanaya ay haysato sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay sii xoojiyaan isgarab istaagidda ciidamada amniga qaranka si looga adkaado kooxaha si dabar go'aya ee al-shabaab waxaan ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinayaa rag iyo dumar roole iyo dhalinyaro qaybaha bulshada oo dhan inay isgarab taagaan ciidamada amniga waxay isu garab taagayaan waa waxa dantooda waa inay ammaan helaan waa inay dukaamadooda iyo suuqyadooda iyo shaqadooda